madashan daahfurka kulan hawleedkan wada tashiga dawladda iyo ganacsatada kaasoo kor loogu qaadayay dhaqaalaha bulshada Soomaaliland waxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku wehelinayay ka soo qaybgalka madasha hoggaanka sare xisbiga kulmiye xubno kamida golaha wasiirada agaasimayaal guud xildhibaano aqoon-yahan ganacsato barasaabka gobolka Maroodijeex maayirka caasimadda Hargeysa iyo daneeyaasha arrimaha ganacsiga Soomaaliland iyo saraakiil ka socday hay'adaha caalamiga ah mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirkan daahfuray ayaa goobta ka jeediyay khudbad Ingiriisi ah oo ku tacalluqda horumarinta ganacsigu doorka uu ka ciyaarayo kobcinta dhaqaalaha bulshada Soomaaliland. My government is fully aware of the role of the private sector and is working very hard to bring about the right reforms in order to create a conducive environment through sound regulatory policies and strategies. Our aim is to encourage the private sector in order to achieve sustainable economic development and improve the future prospects of the country for its population. Hence, my government is proud to launch its first high-level public-private dialogue forum. in aanu dhiirigelino oo aanu kobcino ganacsiga xorta ah waa qorshaha xukuumadayda taasoo ku tacalluqda iyagleelidda fursado ganacsi oo abuuraya dhaqaale koboc. The PPD forum will identify challenges and constraints to investment in key sectors of the economy, including energy, agriculture, and livestock, industry and manufacturing services and others. The forum is an important event organized jointly by the government. iyo ganacsiga Soomaaliland laga suurtagelinayay maraaxil kala duwan ayay soo martay balse hadda Soomaaliland waxa ka jira tallaabo hore loo qaaday oo ganacsi abuura taasoo rajo wanaagsan u ah bulshada reer Soomaaliland. Media, academia, diaspora and others. By establishing this dialogue forum for the private sector, Somaliland is showing its readiness to promote reconstruction and economic recovery and avail the necessary leverage by creating economic opportunities and korinta dhaqaalaha Soomaaliland waa mid daruuri ah oo taabanaya nolosha bulshada Soomaaliland. Xukuumadeeduna way garab taagan tahay ilaalinta iyo horumarinta ganacsiga xorta ah ee Soomaaliland ka tisqaadaya. Our aim is to chart a clear path for sustainable economic growth that meets the development aspirations of the people of Somaliland. I am certain that Somaliland will continue on the path to a stable, democratic and prosperous country through the partnership between public and private sectors. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hor waxa madasha ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Umar Shacay Maxamed oo ku dheeraaday muhiimadda kulankan uu ugu fadhiyo bulshada Soomaaliland iyo horumarkeeda isagoo u mahadnaqay hay'adaha dawladda iyo kuwa caalamiga ah ee arrimahan ay ka wada shaqeeyaan. runtii sharaf ay qiimo weyn oo tahay anigoo ku hadlaya wasaaradda ganacsiga dhammaan dadaalka runtii qiimaha leh ee wasaaradda maanta ay ku daafurayso wadatashiga ganacsatada iyo dowladda. arrinkan public private dialogue micnihiisu waxa weeyaan waxaa la ogaaday adduunyada ama maxay toy dhaqaalaha casriga ah ee lagu horumaray inaanay xukuumaddu keligeed dhaqaalaha aanay samayn karin ama aanay ku guulaysan karin. ganacsataduna aanay keligeed aanay ku guulaysan karin laakiinse ay iskaashi iyo wadatashi ay ku yimaadaan ganacsiga casriga ah ee maanta adduunyadu ay gaarayso. 7 sano wuxuu gaayay dhaqaalaha waddanku maraya halkii ugu sarreysay isagoo xukuumaddu madaxweynaha uu galmudug Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo facilitation fara badan oo samaysay ganacsatada iyo hay'adaha iyo sidoo horumari lahaa. ka wasiir ahaana madaxweyne xilkii adeeg matay ayaa wuxuu ka mid yahay inaan sameeyo platform ama jawi ganacsi oo fududeeya arrimaha ganacsiga.
نقل المدح ويناه وجدتها وسارة كناسي وحوي الريق اليوم كناسي كا كاسي لو داري يمسي لو ترنسيو إن إنترنت يسمى الكلام سمين اليوم وحنا على وحكوية شان